waxaan diyaar u nahay dhintayaal dhaxal reeba inaan naqano sida SYL camal anagana taariikhda ee noo xusto insha Allah. xaflad si heer sare loo soo qaban qaabiyo oo lagu dabaaldegayo toddobaadka dhalinyarada Soomaaliyeed 80 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ururkii dhalinyarada SYL ayaa ka dhacday xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. xafladda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sida gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan, maamulka degmada Wadajir, agaasimayaal, gudoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir, kooxaha dhaantada oo ka kala socday degmooyinka Wadajir, Dharkinley, Kaxda, Dayniile, kuwaasoo la isku yiraahdo qaybta galbeed degmooyinka gobolka Banaadir. agaasinka munaasabadani waxaa lahaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada Wadajir Mudane Yunis Cali Cabdulle oo ah shakhsi ku firfircoon shaqadii loo igmaday kamira dhalinteeda, waxa ayna qayb ka tahay dardargelinta howlaha hiltiminta u leh dhalinyarada Soomaaliyeed. waxa uu u istaagay in uu wax ka bedel ku sameeyo dhalinyarada sida isdhexgalka dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir, wacyigelinta bulshada, garab istaagga maatida, ka shaqaynta amniga degmada, horumarinta isboortiga, tartamayaasha degmooyinka oo ka soo hooyay guulo natiijo wanaagsan. waxa uuna ku helay shahaado sharaf uu guddoonsiiyay gobolka Banaadir, iyagoo u aqoonsaday gudoomiyaha dhalinyarada ee ugu firfircoon uguna shaqada badan. sanad kasta waxaa la qabtaa munaasabadda 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, hase yeeshee sanadkani waxaa lagu soo kordhiyay isbuuca dhalinyarada. halkii maalin laga xusi jiray waxaa laga dhigay isbuuca dhalinyarada, waxaana munaasabado kala duwan ka dhici doonaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana lagu daafuray degmada Wadajir oo noqotay hoggaanka degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiye Yunis Cali Cabdulle ayaa noqday gudoomiyaha dhalinyarada ee kaliya ee ka soo qayb qaatay xoreynta degmooyin fara badan oo ka maqnaa gacanta dowladda. isagoo awoodo in uu ku raaxaysto degmada uu ka yahay gudoomiyaha dhalinyarada, wuxuu taasi beddelkeeda ka doorbiday in uu isku dhigo xabadda qabowga iyo kuleylka oo ka jira halkaasi oo xoreynta u aaday. dadaalkiisa ugu dambeyntii miro dhalay. gudoomiye Yunis Cali Cabdulle ayaa kula dardaarmay dhalinyarada Soomaaliyeed hadalladan murtiyeysan. 75 Soomaaliya waa dhalinyaro dalkan anagu noo baahan yahay. waxyaabaha igu yaabka badnaa markii la dagaalanka khawaarijta la dhaho, sargaalkaas meesha fadhiyo waxaa isla joogna ceel dheer meel la dhaho. waxa aan u tagayna wax kale ma aheen, waxaan ka mid ahay dhalinyaradii isxilqaantay gobolka Banaadir, garab istaagay ciidamada iyo saraakiisha la dagaalamaya khawaarijta si dhalinyarada caasimadda gobolka Banaadir ee uga baxdo baqdinta, ayagana ay ugu dhiiradaan inay la dagaalamaan khawaarijta. alxamdulillaah taas hadafkeedu way suurto gashay. maanta khawaarijta meesha la marsiinayo waa arkaysaan, amniga caasimadda meeshuu marayana waa arkaysaan. marka waxaan idinka rabaa wax walba embrofad inaysan naga naqanin ama wax dheef ee dalkan aan wax ku reebno ka dhalinyaro heer Wadajir ahaan afkooda anoo ku hadlayo. waxaan diyaar u nahay dhintayaal dhaxal reeba inaan naqano sida SYL camal anagana taariikhda ee noo xusto insha Allah. wax walba oo magac iyo mansab dhalinyaro aan ku samayn karnana waa ku samaynaynaa.